wasaaradda ammaanka xukuumadda Soomaaliya ayaa wareegto ka soo saartay gaadiidka xamuulka ah ee inta badan isticmaala wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. afayeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay in la mamnuucay isticmaalka gaadiidka xamuulka ah in ay isticmaalaan wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. gaadiidkaas oo sheegay in kamid yihiin gaadiidka xamuulka ee dekada ka soo baxa iyo kuwa caragadiska loo yaqaano oo inta badan xawli ku mara wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. asagoo sheegay in tilaabo cad laga qaadi doono cidii dhaqan gali weysa ama mirtan ka soo baxday wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya. soo saareen ciidanka nabadgelyada ilaalada wadooyinka ee taraafikada Soomaaliyeed ayaga u qaabilsan dawladda Soomaaliyeed nabadgelyada wadooyinka iyo gaadiidka. waxaan rabnaa muwaadiniinteena Soomaaliyeed ee fariintaas loo faray inay qaataan oo ay wadayaasha gaadiidka qaasatan amnigeena ku jira amnigooda ku jira amniga ummadda Soomaaliyeed dhanna ku jirto magaaladan degan. baabuurta wadooyinka laga mamnuucay waxa looga mamnuucay ciidanku way sheegeen ma ahan xumaan ayaga loo qabo waa badbaadada midka dariiqa maraya iyo midka gaarigaas wata naftirkiisa. hore waxaan u soo aragnay gaadiidkaas waaweyn ee dekada ka xamaasha ama badeecooyinka kale waaweyn qaada wadadan Maka al-Mukarrama isticmaala dhibaatooyin hore oo ay ku jirto xataa naf bini'aadan inay ku waayeen shilal hore ka dhacay. annagoo tii ka duulayna amniga dadka marka mas'uuliyad naga saaran tahay awaamirtaas ka soo baxday taraafikada Soomaaliyeed siday tahay inay u fuliyaan ciidamada amniga kala gedisan ay ku amran yihiin ciidanka NISA iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya amniga gudaha labadaba waxay u diyaarsan yihiin inay talaabo sharci ka qaadaan cidii fulin weyso. waxaana ku jirta amniga ummadda Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa marka ka codsanaynaa wadayaasha gaadiidka inay u dhiganugnaadaan amnigeena ku jira cidii runtii diida awaamirtaas dawladda ka soo baxdana dawladdu waa leedahay qayb la xisaabtanta way leedahay maxaa la yiraahdaa dad daba gala. waxaan laakiin u sheegaynaa intay hadda dadka aysan dhicin digniinahaas oo aragteen inay waajib tahay inaad raacdo tilmaamaha dariiqa ku xiran inaad raacdo waajib ku ah darawalka Soomaaliyeed ama darawaliinta kale ee ajaanibta ah ee joogta magaaladan isku si sharcigu qabana waa sharci dalka u yaala dalka iskale wada kasta gaadiid wada ama muwaadin ama wadanka la u dhasho waxaan ka rabnaa inuu raaco oo fuliyo awaamirtaas si uu badbaado mujtamaca inteeda kale. si kastaba haatee ma la oga hadalkan maanta ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya wuxuu ka bedeli karo gaadiidka inta badan dhibaatooyinka ka geysta wadooyinka Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin gaadiidka ay wataan ciidamada AMISOM oo inta badan dhibaatooyin u geysta shacabka Soomaaliyeed ayagoo isticmaala wadooyin khaldan oo aan lagu talagelin.